shirka maayrada dalka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi uga furmay magaalada Burco waxaana goobjoog ahaa badiba maayrada magaalooyinka iyo waliba agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo gaadiidka waxaana laga hadlayay mashruuca GPLG-ga oo ah mashruuc horumarineed ugu horeyntiiba waxa halkaas ka hadlay oo hadallo soo dhaweyn ka jeediyay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi soo qaybgalayaasha shirkani madaxda halkan isugu timay qaranka soo dhawaada dhamaanteen ba meel kasta aan ka nimaadnay waxaan u shaqeynaa qaran isku bax xaqlaha koobaad ee Soomaaliland baan tirsanaa marka waxyaabo badan eegno sidaa ugu baan idin soo dhaweynaynaa ina cagtaan ugu badsaano soo noqotaan sida noo fahamtay furmay shirkii 14aad ee mashruuca maamul dadejinta degmooyinka gobolka jamhuuriyadda badankooda ay ka shaqeeyaan mashruucaas oo runtii ah mashruuc faa'iido badan ku soo kordhiyay degmooyinka uu ka shaqeeyo oo runtii aan jecel lahay inuu insha Allah bidilaahi baari degmooyinka kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu gaari doono waxaan runtii ku amaanayaa gudoomiyaasha degmooyinkooda mashruucan ka shaqeeyo sida ay uga faa'iideysteen maaragtay degmooyinkooda uga faa'iideeyeen ayaan ku amaanayaa waxaan kaloo amaanayaa wasaaradaha la shaqeeya mashruucan oo iyaguna runtii waqti badan geliyay inuu noqdo mashruucan mashruuc mid dhala shirkan oo ahaa maalin waxa weeyaan hadda uu inoo soo gabagaboobay waanu inoo soo xidhmay dhammaan ka qaybgalayaasha maayirka magaalada Boorama agaasimayaasha guud ee wasaaradaha gaadiidka iyo arrimaha gudaha ayaa faahfaahiyay gabagabadii qodobadii shirka lagaga wada hadlay shirkii aan isugu nimay magaalada Burco oo ballanteedu ahayd markii hore inaan halkaas ugu nimaadno ballantan qabsanay oo ahaa gudida farsamo ee maamul dadejinta oo 45 maalmood ba hal mar qabsooma si fiican buu noogu dhamaaday waan u mahadnaqaynaa reer Burco iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sida ay noo soo dhaweeyeen runtii shirkan wuxuu ahaa shirkii 14aad ee gudida farsamada ee mashruuca maamul dadejinta GPLG had iyo jeer ay adeegga bulshada loo hayo iska kaashanayaan dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradaha waxbarashada caafimaadka hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka biyaha iyo dawladaha hoose degmooyinka Soomaaliland ujeedada shirkuna waxa weeyaan in la kala faa'iideysto khibradda degmo walba adeegga caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wadooyinka iyo hawlaha kala birashadaba sida ay u qabtaan in degmooyinku ay experience sharing sameeyaan oo khibrad Mahad Ali Goodir Star TV Burco.